اللهم ارفع لنا به الدرجات وأنقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا محيطا بالليالي والأيام نسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا جار المستجيرين ويا أمان الخائفين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وأبداننا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم القيامة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. maanta waxaynu joognaa aaskii jaamac nuur. ilaahay jaamac nuur ha u naxariisto, ilaahay dembigiisa ha dhaafo, muslimiintii ka horreysana allah ha u naxariisto, innagana allah inooga daba naxariisto, dal iyo dadba allah hayna barakeeyo. jaamac nuur waxaynu ka tacsiyeynaa qaranka Soomaaliland, dadka waxgaradka oo dhan, dadka dalka jecel, dadka soo halgamay, dadka cadaaladda jecel iyo qoyskiisa waayana intaa ku sutan buu ahaa. intii bini aadmi wanaag leeyahay in laba waxa haday deeq tahay iyo haday cadaalad tahay iyo haday halgan tahayba ilaahay waxaan ugu rajaynayaa inuu jannadii firdawso ka waraabiyo isaga iyo wixii muslimiin dhintayba, qoysaskiisii iyo ehelkiisii iyo qarankana halkiisii ilaahay inuu ciid khayr qabo u dhigo, inagana dhammaanteen samariya baan naga siiyo. ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa jaamacu waxa dadka aad wanaaga la isku raacsan yahay, haday deeq tahay, haday hadal dabacsan tahay, haday dad ururin tahay, ilaa iyo intii uu yaraantiisii hana qaadayba baayac mishtar buu soo bilaabay, baayac mishtar badan buu sameeyey, taajir weyn buu ahaa. haddana wixiisi wuxuu ku bixiyey danta guud iyo halkii la yidhi dadka danyarka waxa la siiyo, ilaa uu isagu markii dambe ahaa nin aan xoolo haynin oo wixiisi u huray dadka. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu wixii uu sadaqa hore u geystay wanaagna abaalkiisa siiyo, inagana wada naxariisto iyo wixii muslimiin. Assalaamu calaykum. jaamac nuur ilaahay ha u naxariisto. nin weyn baa tegey, nin qaran baa inaga tegey. ilaahay waa u roonaanaya qofku mar hadduu wanaag bani aadamka u roon yahay isna ilaahay waa u roonaanaya. ilaahay meel fiican oo jannatulfirdaws ha siiyo, qoyskiisii iyo qaraabadiisiina sabir iyo iimaan ilaahay naga siiyo. ilaahay rabbi oo naga aqbal، إله نغا أقبل، إله نغا أقبل،
intaa madaxweynuhu yidhi unbaad anna ku sii tumanaye isaga inoogu fillaydba sabir iyo imaan ilaahay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. halkan waxaan tacsi uga diraynaa guud ahaan qaranka jamhuuriyadda somalilan, gaar ahaan qoyskii reer jaamac nuur iyo asxaabtiisii uu ka kow yahay madaxweynaha qaranka muuse bixi cabdi, oo ay ahaayeen nin aad isugu dhow, iyo guud ahaan bahdii waday halgankii oo guddoomiye saleebaan maxamuud aadan ka mid yahay. waannu idinka tacsiyadaynaynaa, samiriyo iman allah idinka siiyo, isagana allah u naxariisto. jaamac nuur marti la jecel yahay allaha ka dhiga maanta, marti la jecel yahay oo malaa'igtu soo dhowayso allaha ka dhigo. sida laysku wada raacsan yahay jaamac nuur xasan wuxuu ahaa nin wanaag ku suntanaa, oo bini'aadankuna ka nabad galeen, kuwa ishaystana dadka wanaajiyuu ahaa ee dhexdooda wanaagga ka abuura, ee carabkiisa ku wanaajiya, calooshiisana ku wanaajiya, maalkiisana ku wanaajiya. waxaa laysku raacsan yahay inuu nin deeqsi ahaa. in alla intaa wanaaga ee dadku ay u sheegeen jaamac, ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu xasanaadkiisa ku helo aakhira. maanta halkii uu u shaqaysanayay rasmiga ahayd buu maanta joogaaye, allaha ku siiyo. bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin. ilaahay waxaynu uga baryaynaa jaamac nuur ducadaa loogu ducaeyey ee madaxweynuhu ka bilaabay, ee guddoomiyaha guurtidu ku xujiyey, suldaanku ku xujiyey, iyo dhammaanba ummadda muslimiinta ahi waxay maanta ugu ducaynayso in ilaahay ducadaa inaga aqbalo, oo ergadaa aynu isugu nimi ilaahay subxaana wa tacaala inaga aqbalo. waxay muujinaysaa muslimiinta halkan isugu timi, annaasu shuhadaa'u cala alard, inuu ahaa addoon fiican ummadda isugu timi bay ka muuqanaysaa. markhaati wanaagsan baa u dhacay, nebigu kuwaasoo kale wax wanaagsan buu u rajeeyey. ilaahay waxaannu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii janno fardowsa ka waraabiyo. waxaan innagana inoogu dardaarmayaa laba arrimood buu maanta inooga baahan yahay. tolliimuu inooga baahan yahay, muslimnimuu inooga baahan yahay, taageeruu inooga baahan yahay. waa maxay waxa uu inooga baahan yahay? wuxuu inooga baahan yahay duco mar kastoo aynu xasuusanno inaynu u ducayno. waxa labaadee uu inooga baahan yahayna ninkii heli kara in loo sadaqadeeyo oo wax meel loo dhigo ayuu inooga baahan yahay. waxa saddexaadna in la cafiyo, oo cidi uun hadday jirto la cafiyona waa inooga baahan yahay. saddexdaasina innagay waajib inooga tahay. allahu calaa sayidina maxamed, inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. waxaan aad iyo aad u tacsadaynayaa madaxweynaha iyo halgankii esan qaybtii uu ku lahaa iyo wadanimadiisa jaamac nuur. waxaa si gaaraan u tacsadaynayaa inankiisa oo ah saraakiisha bangiga ka tirsan bangiga dhexe oo imikana halkan nala jooga, iyo ehligiisa kaleba dhammaantiin waxaa leeyahay samiriye iimaan, ilaahay naxariistii janaaha ka waraabiyo. qof wanaagsan inuu ahaana waxa uu markhaatiya dadka halkaa yimi. inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaannu maanta halkan joognaa aaskii jaamac nuur. waxaannu ka tacsiyadaynaynaa dhammaan jamhuuriyadda somalilan. waxaannu ka tacsiyadaynaynaa oo kale qoyskiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisii, saaxiibbadii oo aan ka mid ahaa. ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo dhammaan qoyskiisana. waxaannu u rajaynaynaa ilaahay inuu samiriyo iimaan ka siiyo. jaamaca waannu u ducaynaynaa. inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxaannu taagannahaynoo halkan u nimid waa aaska walaalkeen jaamac nuur. jaamac waxaannu leennahay allaha u naxariisto. jaamac wuxuu ahaa nin ku suntan wanaag, waxaanay ka muuqataa aaskiisa inta ka soo qabshiyo inta joogta. waxaynu ilaahay uga baryaynaa in wanaaggii uu ku suntanaa uu qabrigana u wanaajiyo, jannatulfarduusana geeyo. waxaynu jaamac leennahay ilaahay ha u naxariisto, ducii inooga baahanya. waxaynu ugu ducaynaynaa inu jannadii firdowsa ka waraabiyo. waxaan marka hore halkan ka tacsiyadaynayaa jaamac nuur iyo marxuum jaamac nuur iyo ubadkii uu ka tegey iyo ehelkii uu ka tegey iyo madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan oo halkan nala jooga, dhammaan iyo shacbiga somalilan ee jaamac nuur yaqaanay. annagu jiiraan baanu ahayn xagga muxuu ahaa xaafadda iyo deegaanka. inankiisa ugu weynaynaa baanka ayuu ka yahay, saraakiishu ka mid yahay, halkan nagu joogaa. isagana aad baan uga tacsiyadaynayaa. intaas ha u naxariisto, qabriga ha u nuuro, ha ka dhiga ehli jannaha, ehelkiisiina ilaahay ha ka sabir siiyo. waxaa laynla raajicuun. shacbinaha somalilan mujaahid weyn buu ahaa,
waxaan leeyahay ilaahay maaragtay ha u naxariisto innagana sabriyi marhaynugu haafsan inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsiyo uga dirayaa marka hore ehelkii iyo ummadda reer somalilan oo dhan geerida ku timid jaamac nuur waxaan leenahay nin wanaagsan buu ahaa nin waddankan dhib fara badan u soo maray buu ahaa siduu halkan u soo gaadhi lahaa wax badanna loo xidhay dhibaatooyin fara badan ku soo gaadhay waxaan leenahay ilaahay sabriyey baan haynaga siiyo isagana ilaahay jannada ha ka waraabiyo raxiim waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan dadka reer somalilan gudaha iyo dibadba waxaan ka tacsadaynayaa geeridaa ku timid mujaahid ahaa odayaasheenii u waaweynaa jaamac nuur isagoo runtii ah dadkii dalkan xoreeyey ka mid ahaa odayaashii ugu waaweynaa ama ganacsatadii ugu waaweynayd dalkan xorriyaddiisa keenay ka mid ahaa isagoo ka mid ahaa dadkii dibadhiska dalka qayb weyn ka qaatay ama raggii ugu waaweynaa isagoo ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan oo ummadda reer somalilan cid kastoo taqaanaaba ay raalli ka tahay dhammaan ummadda reer somalilan waan ka taxsadeen ilaahay jaamac nuur naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahow naxariistaada ballaaran baanu ku weydiinna ilaahow deeqsinimadaadaana waxba kaaga yaraanan darteed ilaahow ku jannaa ilaahow deeqsinimadaadana waxba kaaga yaraanan darteed ilaahow ku jannaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka baxayna samir iyo iimaan iyo ciwad khayrle ilaahow ka sii ilaahay ha u naxariisto jaamac nuur xasan nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxaannu weyddiisanaynaa ergaannu nahay inuu ergadaa naga aqbalo in ilaahay u naxariisto inuu shirka hore ee firdowse ilaahay geeyo ilaahay jannadii ka waraabiyo ilaahay sabriya baan ka siiyo qoyskiisii iyo awlaaddiisii iyo somalilan oo dhanba waxaannu leenahay ilaahay ha u naxariisto taariikhda jaamac nuur haddaan ma soo koobi karayo wuxuu ahaa nin weyn wuxuu ahaa nin halgabaaya wuxuu ahaa nin maalintii ay baxday afraad ilaa maalintii dalka la soo galay ilaa nabadayntii intaa aan maalin qudha istaagin buu ahaa taariikhdiisa meel qudha kuma koobi karo wuxuu ahaa nin weyn oo soo shaqeeyey oo intaasoo dhan soo halgamay maanta waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariista ilaahay ergaannu ergada ha naga aqbalo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay shirka hore firdowse ha geeyo ilaahay ummadda somalilan iyo awlaaddiisii iyo qoyskiisiina sabriya baana ka siiyo ilaahay naxariistana ha siiyo nin waliba taasoo kaluu marayaa ilaahay baa inoo sheegay qur-aankiisa inuugu caddeeyey kullu man calayha faan wayabqaa wejhu rabbi daljalaal walikraam kullu shayin haaliku ilaa wejhu kullu nafsin daa'iqat almowt aayadaha qur-aanka ayna qancinaya cid hadhasaa ma jirto jaamac allah u naxariisto dhammaan dadka reer somalilan iyo ehelkiisa iyo qaraabadiisiina sabriya iimaan allaha ka siiyo jaamac nuur uma baahna allah u naxariistee in dadka wax looga sheego nin macruuf u ahaa anuu kelmaddaan odhanaya waxa weeye waxaan u mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca reerka iyo magaca faamligaba dadka ka soo qayb galay oo u horreeyey madaxweynuhu iyo wasiirrada iyo ummadda guurtada iyo cid waliba ay ka soo qayb gashay iyo dadweynaha ka soo qayb galay ayaan u mahadnaqayaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida fiican aad uga soo qayb gasheen